madaxweynihii hore marka uu leeyahay dhaawac iyo meyd baan la soo galay kuwii dhaawaca iyo meydka ka badbaaday intii dhaawacantay iyo intii dhimatay kuwii ka badbaaday baa ugu darxumo badan maanta Kismaayo kuwii uu sheegayay meydka iyo dhaawaca carruurtoodii iyo agoontoodii iyo xaasaska ay ka tageen baa ugu liita magaalada kuway luguhu ka go'een baa weli luga go'an oo xataa bir ay ku dhutiyaan aan haysan haddaad adigu meydkii dhaawacii aad wadatay kii ugu dambeeyey ee maxaan ku idhahdaa sacmoojo miinadii ugu dambaysay isagoo bixinaya ay ku qaraxday aabbihiisoo indhalaa baa jooga magaalada hal maalinna maanu arag hadduu isagu sare ku dhistay oo baddana guri ka dhistay xaggana ka dhistay booli qaran oo laga dhistay Kismaayo dadkii waa baaba'een bangiyada dibadda iyo wadamada dariska ay caalamkana laga dhistay maxaan ku dhaha qasriyaal dadkii waa baaba'een dadkuna ma waardiyeynayaan 4 nin oo iyagu makhaayaddu u shidan tahay shacabku ma waardiyeyn haddii dulqaadku dhammaaday oo kooxdii dulmiga ku socotay ee boobka ku socotay dulmi ka dhammaaday dulqaadkii macnaheedu waxbaa u socon waaya darbigay gaadheen annaga wali dulqaad baan haynaa dulqaadkaan haynaa wuxuu yahay inaan ku taagnaano dariiqii wallahi hanaan daalin haddii alla yidhaah waxaan ogol lahay in miis laysugu yimaado oo la wada hadlo oo laga wada hadlo waxa la leeyahay qofkii ilaahay u qoray bulshadana u garatana uu maamulo dalka waxaa la yidhi dawlad federaal cir iyo dhul baan ka xidhanay iyo bad maxay xidhi karaan masaakiintaan maxaan ku idhaha 10 kilomitir ku haraysa maxaan ku idhaahdaa shacabka Jubbaland baa la ciqaabayaa baa hadda la leeyahay goormaa la ciqaabay weligii buu ciqaabnaa shacabka Jubbaland goorma ciqaabka ma hadli kartid ma qosli kartid ma seexan kartid ma soo jeedi kartid aw koomba wuxuu yidhi in la riyoodo horta waxaa ka horraysa in la seexdo dadkaan maba seexanina goormay riyoonaya weligoodba maba aragba waxaad ka hadlayso Jubbaland ma dhammaatiya sacmoojo inta u dhaxaysa ma shacabkii aaway bulshadii aaway beerihii aaway xoolihii aaway oday dadka halkan fadhiya kaamirada ka wada gabanay nin geela aadiga dadka nin geelisa aadi karo caawa caana ka soo cabbi kara mala waraa runtaa la isu sheego cidna looma bootayn karo cidna looma digdiglayn karo cidna looma hanjabi karo maxaan ku idhaahdaa 5 baan ka saaray iyo 6 baan ka saaray hadeer waxaasi waa la isla soo dhaafay 2013 iyo 2019 wey wallaahi ka dhashiikaha wada iyo ka akeega wata iyo ka BKM-ka wata Axmed iyo inagu waa u simanahay inay fahamsan yihiin kuwa dhigooda cabayna inay yaqaanaan kuwa kabaha u sii gelinaya ee beenta u sheegaya ee dhirtii aynu lahayna dhoofsaday ugaadhiina ku socda haddana dadkii dhammaynaya dadyow kale maxaan ku idhaahdaa fikirkooda ku shaqaynaya marna ma aqbaleen mana uga tegeen mas-uuliyadda naga saaranna waa gudanaynaa midnimadeennana waa adkaynaynaa 26 hadday iscaleemo saarayaan oo kuwa been hawaasyo oo bannaanka laga soo kireeyo $2,000 loo diray lagu keenayo kuwa aan shilin qaadanoo shacabkii reer Jubbaland 25 ka samayn doona caleemo saar ka ballaaran 25 bisha iyo maalinta kale ee la isla garto anigu waxaan soo jeedinayaa reer Jubbaland $2,000 oo tikid loogu darana uma baahna qof walba caagadiisa ha soo biyowda hoteella nama qaado lacago wadamo shisheeye laga soo qaadayna ma wadanno hoteellana nama qaadaan bannaan barxad weyn oo aynu isla garanay baan ku caleema saaran doonaa haddii aan idhaa 2013 sheekadii aad kaarka ma shaqaynayo ii boobsiiyo doorashada iigu shuba anaa dadka hadhow iska maslixi doone ruuxa waa dhammaatay waxaan ku soo ururinayaa
ree isbeddel doonow magaciinnu waa ree isbeddel doon ama doolow joog ama reeskaambooni joog ama maxaanku idhaahdaa joog maxaanku idhaahdaa maryangubaay iyo meel u dhow ama maxaanku idhaahdaa joog maxaanku idhahdaa yaaqbaraaw iyo agaheeda ama dhoobley iyo joog xuduudaha ree isbeddel doon baa nala dhahaa taa aan u diyaar garowno hal meel baan u wada soconnaa haddii alla yidhaahdana goolkaa waa dhalinaynaa cadaaladdaa imaanaysa qofka madaxweyne ka noqonaya annaga nooma kala duwana ama aniga ha noqdo ama seeraar ha noqdo ama mid kale ha noqdo ama axmed madoobe laftirkiisa ha noqdo laakiin waa in doorasho dhacdaa soo horta baashu meelay ka uskunta mala doorasho waa inay dhacdaa ninkii qaadanaya ha qaad axmed lacagna wuu haystaa maxaanku idhaahdaa dalkan inbuu soo xukumayey hadday dadku jecel yihiinna way dooranayaan haddayna jeclayna uu iska baxaya maxaa dhibaatoo jira intaa waxaan ku darayaa oo aan baaq u darayaa beesha caalamka doorka aad soomaaliya ku leedihiin qaata mandateska security councilka eed haysataan waa naqaanaa article 27 mandate buu idin siinayaa wuxuu idin siinayaa doorasho xor iyo xalaala oo amnigeedu sugan yahay inaad soomaaliya ay ka dhacdo qaybna ka qaadataan caalamkana waa naqaanaa dariiqyada loo marana waa naqaanaa wakiilka xogeeyaha guud James Swan iyo safiirada iyo hay-adaha iyo dalkan Soomaaliya dadka loo soo xil saaray wallahi mas'uuliyadiina haddaa gudan weydaan waxbaa ku yeelanaysaan dambiga halkaa ka dhacaya ciidamada amisom annaga waddanka ay yihiin iyo xaafadday ka yimaadeen shaqadeenna ma amisom waan naqaanaa midka noo xiiraay iyo midka noo hoolhoolaay idinkana waa idinkala naqaanaa haddii xaafad yar iyo qoys yar iyo maxaanku dhaha shaksi wax idinkala dhexeeyaan soomaaliya way ka gudubtay taas waxaan u baahannahay lacagta aad qaadataan ee wiilashayada idinka tayada badani ay ka gaajaysan yihiin waa idinkula xisaabtamaynaa waxaanan gaari doonnaa shacabkan intuu kaco in airbortka laydinka saaro oo dayuuradaa raacda African Union Ambassador Madera iyo saaxiibadiis iyo saraakiisha amisom ciidamada amisom uma imaanin raaxo iyo inay dadka dhibaatadiisa ay fiirsadaan shacabkan waa kici doonaa inta aanu kicin mas'uuliyaddiina qaata dawladda Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa kismaayo faraha ka qaada galmudugtiina aada koonfur galbeedkiina aada maxaanku dhaha hirshabeellihiina aada Jubbaland go'aan bay qaadan doontaa haddaad tallaabada idinku habboon qaadan weydaan sideed bilood iyo hal sano ku dhowaad baa waxaan baryaynaa doorasho cadaalad yaan ka baryaynaa waxaan ka baryaynaa in dadkii mas'uuliyaddu haysay ka dhammaato war doorasho cadaalada noo qabto been iyo turufo iyo khiyaamo wallahi inaan lagu noolaan karin iyo bilaahi mana aqbalayno haddii hadda laysdilaayo iyo haddii hadda layslaynayo iyo haddii hadda maxaanku dhaha dhibaata dhacayso ka noogu dambeeya ree isbeddel doon 25 bisha markay tahay waxaa inoo ballana bannaanka weyn ee magaalada Kismaayo halkaas calaamadaha ka dhigay ninkii qori haysta iyo ninkaan haysanin iyo ninkii af haysta iyo ninkii sharci haysta iyo ninkii shacab haysta maalintaas noo ballana waligoodba maba aragba waxaad ka hadlayso Jubbaland ma dhamaatay saxmooshay inta u dhaxaysa ma shacabkii aaway bulshadii aaway beerihii aaway xoolihii aaway oday dadka halkan fadhiya kaamirada ka wada gabanay nin geela aadiga dadka nin geelisa aadi karo caan ka soo cabi kara mala runtaa la isu sheego cidna looma bootayn karo cidna looma digdiglayn karo cidna looma hanjabi karo maxaanku idhaahdaa 5 baan ka saaray iyo 6 baan ka saaray hadeer waxaasi waa la isla soo dhaafay 2013 iyo 2019 wey wallaahi ka dhashiikaha wada iyo ka akeega wata iyo ka BKM-ka wata Axmed iyo inagu waa u simannahay inay fahamsan yihiin kuwa dhigooda cabay inay yaqaanaan kuwa kabaha u sii gelinaya ee beenta u sheegaya
dhirtii aynu lahayna dhoofsaday ugaadhiina ku socda haddana dadkii dhammaynaya dadyow kale maxaan ku idhaahdaa fikirkooda ku shaqaynaya marna ma aqbalayn mana uga tegeen mas-uuliyadda naga saaranna waa gudanaynaa midnimadeennana waa adkaynaynaa 26 hadday iscaleemo saarayaan oo kuwa been hawaasyo oo bannaanka laga soo kireeyo $2,000 loo diray lagu keenayo kuwa aan shilin qaadanoo shacabkii reer Jubbaland 25 ka samayn doona caleemo saar ka bilaaban inuu 25 bisha iyo maalinta kale ee la isla garto anigu waxaan soo jeedinayaa reer Jubbaland $2,000 oo tikid loogu darana uma baahna qof walba caagadiisa soo biyowda hotel nama qaado lacago wadamo shisheeye laga soo qaadayna ma wadano